madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaabe xubno ka socday labada aqal ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya qeybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed kuna nool magaalada Jowhar iyo marti sharaf kale ayaa ka qayb galay munaasabad lagu weyneynayay 5 Oktoobar oo ah maalinkii dibadda loo taagay dowlad goboleedka Hirshabelle iyadoona inta ay socotay munaasabadu lagu soo bandhigay bandhig faneed ay jecleysteen kasoo qaybgalayaasha xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo gudoomiyaha golaha wakiilada maamulka Hirshabelle ayaa hambalyo waxay u direen bulshada Soomaaliyeed ee deegaanada Hirshabelle. waxaan hambalyo leeyahay shacabweynaha Hirshabelle meel walba ay joogaan may iyo magaalo dal iyo dibadba. intaa kadib madaxweyne aad u mahadsan tahay. anigu xafladan sanad guuro oo Hirshabelle kaliya uma fasiranin, waa ka gudaweyn tahay. waa maxaa la yiraahdaa Hirshabelle waxa ay tahay iyo Cali Guudlaabe wuxuu yahay iyo maamulkiisa waxa ay yihiin dawladdiisa xukuumaddiisa ayaa lagu soo bandhigay halkan. marka taasna xisaabta lagu darsado one man one vote kana waxaan u rabaa waxay tahay waxaan aaminsanahay in kuraas aan leeyahayna ay ka soo baxayaan galmudug kuwa kale oo leeyahayna inay Hirshabelle laga soo baxayaan. marka one man one vote sidaas aan u rabaa iyada aad u mahadsantiin amiin wanaagsan. hambalyo madaxweyne oo ku hambalyeynayna sanad guurada 8aad ee Hirshabelle waa ka hambalyeynayna reer Hirshabelle dhamaan waa inii hambalyeynayna waan isku hambalyeynayna amiin wanaagsan. madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaabe oo munaasabada ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in dowlad goboleedka Hirshabelle si aad ay isaga xoreysay kooxaha qawaariijta Al-Shabaab waxaana sidoo kale uu tilmaamay in dhawaan la bilaabayo wajiga labaad ee ciribtirka kooxaha qawaariijta Al-Shabaab. Hirshabelle wixii laga soo maray waad wada ogtihiin. gudoomiye gobol aan ahay gobolka Shabeellada Dhexe gudoomiye gobol ka ahay madaxweyne ku-xigeenkuna gudoomiye gobol oo ka ahay gobolka Hiiraan muddo 9 bilood ayaa loo fadhiyay aas-aaskii iyo isku darkii labadaas gobol. runtii waxa ilaahay maadiisa in lagu guuleystay laguna midoobo calanka arkaysiin waad arkayseen amnigu meesha hadda ka marayo Hirshabelle sida dad badan oo mas'uuliyiin oo goobta ku sugan ay qireen dagaal la galay nimankii xawaariijta ahay deegaano badan ummadan ku dhibaateeyay in laga xoreeyay. ilaahay ayaa maada iskale waan u mahad celinaa runtii bulshooyinka Hirshabelle iyo dawladda dhexe guud ahaan dagaalkii lagu qaaday nimankaas xawaariijta inta ku dhimatay Allah u naxariistaan leena inta ku dhaawacantana Allah caafiya ayaan leeyahay. runtii deegaanadii ay ka tageen dhibaato badan ayaa ka muuqatay oo raadkoodii ku yiilay nolosha haday tahay muxuu ahay wixiba adeegii bulshada dhan way baabi'iyeen. runtii dad ay dhibaateeyeen muddo dheer ayaan ugu tagnay. waxaa dadaal badan loo galay sidii dadkaas noloshooda iyo muxuu ahay maskaxdooda wax looga bedeli lahay. alxamdulillah ya maada iska leh waad arkayseen amnigu meesha hadda ka marayo Hirshabelle in 22 habeen iyo 22 maalmood ugu dhex socdo bulshada cid baaraysa ina jirno kumanaana isu soo baxaan waxay ku cadeynaysaa cadowgu inuu jabay wax talaana oo ku lahayn deegaanada Hirshabelle qaybo badan oo kamid ah dadkuna inay maskaxda ka xuruubeen ayay ku cadeynaysaa xilliyadan dib xoreynta ku jirnay oo sheegayo sanatarka deegaanada dadka jooga iyagoo ku jecelayna ku soo bixi karin sababtuna waxay ahayd culeys saaray eeday. laakiin maanta waxa ilaahay maadiisa inay sad arkayseen isugu soo baxayeen degmo kasta iyo deegaan kasta oo tagno iyagoon kala herin. runtii horumar ballaaran ayaa ka jiro xasilintii deegaanadii la xoreeyay wax badan ayaa laga qabtay. insha Allah galbeedka wabigana waa ku jihaysanahay waqti dhowna waxa ka bilaaban doono howlgalkii si iyagana adeega bulshada loo gaarsiiyo hadii Ilaahay raalli ka noqdo.